الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhawaada murtideena maanta oo aan ku soo qaadanayno xubinteennii caanka ahayd ee murtida maanta waxa la yiri shan oo walaalihi haday shiraystaan oo isku tala yihiin hal shansho ayaa ka baxda waxa la yiri shan oo walaalihi haday shiraystaan ayna isku tala ahayn shan shansho ayaa ka baxda waxa weeye xubinteena murtida maanta shan oo walaala ah oo isku tala hal go'aan ayay leeyihiin cid oo imaata ama dagaal ugu imaata ama nacfi doorasho ugu imaata ama wanaag ugu imaata xumaan wax kasta loogu imaadaba waa shantaan waa isku talo hal xubin ah ayaa loogu imaanaya iyagoo midaysan hadii shantaan ayna isku tala ahayn oo mid walba gaarkiisa uu yahay oo shan wax ka dhaxayn col ay yihiin ayna walaalayihiin shansho ayaa ka baxda oo meeshii loogu imaado wixii loogu imaado mid walba dhinaciisa ayaa loo boobayaa hadii ay noqon lahayd mid walba gaarkiisa in loo dilo ayaa suurtoobaysa laakiin shantoodu haday midaysan yihiin hal mid baa laga yaabaa in laga dilo shanta kalena ay badbaadaan ama hal nacfi laga qaato midaysan intooda kala nacfigooda kale intaan uu badbaado waxa weeye murtideenan maanta ee erayga noocaas ah shantaan ee walaalaha ah ee shiraystay macnaha shiraysi waxa la yiraahdaa hadii ay baahiyo jirto oo neef la qasho neefkaas lagu midaysan yahay ee baahida loo qashay ayaa la dhahaa shiraysi waxa jira marka xoolaha laga hadlayo qalashadooda alla bari baa jira waxa jira tamooti baa jirto oo neef sidiisa milkumood u qabtay oo la qashay ah oo tamooti ah waxa kale oo jira shiraysi waxa jira sagaalaysi ama ducaysi oo islaan laga yaabo inay dhalayso loogu duceeyay ama ur leedahay loogu duceeyay ayaa jirta marka shiraysi hadii la dhaho waxa weeye xilli ay baahiyo jirto oo wax kale oo la cuno la waayay neefka la qasho ayaa la dhahaa shiraysi xubinteena maanta ama murtideena maanta ee aan ku soo qaadanayno dulucda ah shan oo walaala ah oo shiraystay hal shansho ayaa ka baxda waxa weeye dadku hadii ay noqdaan kuwa isku tala ah oo midaysan wax kasta oo soo wajaha si midaysan ayay uga jawaabayaan waxaana laga yaabaa inay ku badbaadaan oo ay noqdaan kuwa karaamo iyo sharaf iyo cizi ku noolaada iyo horumar iyo dhaqaalo iyo waxabo waxay noqonayaan kuwa wanaag iyo karaamo iyo sharaf iyo nolol midaysan ku noolaada si aad ogtihiinba midnimadu waa shayga ugu wanaagsan ee nolosha bini'aadanka ugu qaalisan saarteed maadaama uu yahay shayga ugu wanaagsan ee nolosha bini'aadanka ugu qaalisan ay midnimada tahay waad aragteen xitaa xagga diinta markii laga hadlayo iyo islaamka qaababka loo soo wixiyay sida midnimada leeynogula dardaarmay iyo inaynu noqono duul isku mid ah oo imaam leh oo nin imaam oo horjooga leh labadii qof xitaa meel maraysa waxaynu la soconaa in la yiri midkood han noqdo amiirka laga tala qaadanayo taas maslaxada bini'aadanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa isagaana inuu la dardaarmay inaynu noqono kuwa isaga xarigiisa qabsada oo midaysan sida awgeed hadii aynu noqono duul midaysan te wax kasto in soo wajaha haday abaaro imaato si midaysan baynu u wajahaynaa hadii colaado imaato si midaysan baynu u wajahaynaa hadii dhaqaale imaadaan si wanaagsan baynu u wajahaynaa hadii tala imaato si wanaagsan baynu u wajahaynaa midaysan midnimadu marka waa shay qaali ah xubinteena murtida maanta waxay tilmaamaysaa inay tahay midnimadu lagama maarmaan sida darteed waa in la ilaaliyaa midnimaduna ay noqoto shayga inoogu qaalisan hadii aynu nahay dad nool ileen ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ina leh waxaana loo baahan yahay inaynu noqono dad allihii abuurtay yaqaana iyaguna yaqaana ilaaliyana xushmad iyo karaamana lahaada oo ah dad midaysan sida inaynu noqono ayaa qaali inoo xubinteena murtida maanta mahmaahda aan ku soo qaadanayno ee aan raacinayno midaas iyada ah waxa weeye gacmo wadajir bay wax ku goyn karaan taasoo ah dulucda saldhigeeda mahmaahdu yahay midnimadu inay tahay mid wax walba lagu awoodi karo oo sahli karto waxyaalo fara badan dadku inay qabsadaan mar hadii la midaysan yahay waayo midnimadu waxay muujinaysaa waxa la dhahaa hadii la ku simogeliyo abuurkuba midnimo ayuu didmooyinka ku dhisaa sida darteed hadii bini'aadanku midoobo dawad garanaysaan inayna inagu adkaanaynin wax walba oo nolosha khuseeya iyo cibaadada iyo alla cabsiga sida darteed waa inaynu noqono duul midnimada ilaashada kuna adkaada midnimadooda